وصومالي أنبياء إسمرين maxaa cadaynaya baasaboorkayga cadaynaya inaan Soomaali ahay anu taana waxaad ogtihiin dad badan oo igula tartamaya kursigani inay wadamo kale u soo dhaarteen oo ay wadamo kale ka yimaadeen baasaboorkiisana ay wataan waxaad ogtihiin safaaradaha dalka jooga inay ku hanjabayeen inay maxkamad saari doonaan حاجة لو أركي مدحوينه ودنا محكمة دلك على ذوق ساريو تصدق هذا وحين تشنا وحين نقول إنسا جيش الصوماليات بانهاي أو هذه سنة أي عد هاي ميني سنة أي عد هاي نقول مايا إن شاء الله كرسي جمر كان كفر يستوان كفر يستنى قالين وحصحيحان نقول مايا أنو من أنتو ضدك كبقوا دولة لها كبقوا وحسك صحيحون فتقالوا dhulka qaado waxa qaado Soomaali baan hay geesi ah halka waxaan ku taaganahay maanta hortiina waa darajada ay wataan dadka aad arkaysaan ee darajada xidhan ciidamada noocooda kala duwan shanta sifaan leeyahay oo ninka ragga ah ee madaxda lagu dooran karo hal yar xildhibaanadu dhammaantood marka la isku daro waa 229 أنا مدحوين أنا أقول إن شاء الله وصدح بقول يصدم من أسكير بينو كيننا شو اسمه دفنين مو واحد كانوا بحنت ولا سكوت فضا شو هذا اسمه دفنين وأنت قف كستو أحل دبانا الله جربا إنه عيدا يسوق كنا لا قرأ ولا تبرو وحأقول دم بيا يدنا وأديك بالشدة إن كأديكنا يماها وإن أنو أديكيو بإذن الله وحنقول دونا madaxweynihii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee diyaarad Somali Airlines cagaha saara ma aha inaan iska sii socdo uuno diyaarad baba u goyn lahaydba safaradooda hadii la eego diyaaradba u goyn lahaydba waxaan noqon doonaa insha Allah madaxweynihii Soomaaliyeed ee diyaarad Somali Airlines cagaha saara haddaan wax yar ka ilaahdo wasaaradda maaliyadda oo qaar laga yiri iyada oo maqlaysay waa dhaweyd in la yiri ninkii qasnajiga ahaa هل ماشي دولك مرة يأجا باشهم بقول يا لبعتهم كنا $1 ربحي شو اسمه هين ها وزارة المالية ده قبل بانو دي بيان وزير كبيرة المالية ده قبل بانو دي بيان أقاسمها قبل بانو دي بيان بانكيجا قبل بانو دي بيان قسنتشيجا قبل بانو دي بيان حسابيها جود قبل بانو دي بيان ساس ولا صعدة إن شاء الله محاد عي ويكره أحمد بدنيهين والله بالله طلع إن إساس سميسين قبل سوماليات أنت يشم بقول كل لبحضه إنه لا عرته إن إساس سميسين ما بس سميسين بقبل سوماليات كوانو دلك ودي بالناس دلك كل سمينا يا رجعها برلمانك وحو حق يلاني يلاني يا dalka waxa soo gala ee dakhliga inuu og yahay meesha uu ku baxo iyo inta talaba haddaad guddi u doorataan baarlamaan iyo haddii hortiina maalin walba laga sheegayo maalin walba waa laga sheegaya waxa dalka yaala iyo waxa ka baxay iyo meesha ay ku baxeenba wasaaradda maaliyadda intaasaan iyadana ka leeyahay waxaan u ballan qaadayaa haddaba baarlamaanada awalan waxaan u ballan qaadayaa saraakiisha sharafta leh ee dalka hogaaminaya ee had iyo habeen إن الحقوق دينا إن شاء الله هشان وأن نقطان كوا دلك أو شرفت بدن إذن كأي عيد مدينة بقى برلمان كالصوماليات وحا دب بدن بوحي لو محد برلمان كوجود تجوي ذيو سيد الدكتور كيجوه الرئي شيء إن العيدنا الجذب كجلا ما خبوا حدا إذا هرت هاجنا هاي بإذن الله هن مدحوينه هني معنا هاي وأن كوكل صانع هاي وحنوجود تجوي مرة بقينا نشوفن نقطة هي قبيل يرقوبات كتيرة وان كوين هاي قرن الصومالية بانو السعودية برلمان حتى بوحان إدين بلنقاضي يا مانتا كو إن الحج كإدين جاي دمانتين إن شاء الله إدين كا يلبدي نوالد با إن الحج كوضا تجنو وحانو بلنقاضي يا برلمان كا سنة دوالبا هل قف إن إدين جايو جامعة هل قف oo baarlamaanku uu keenay oo ehelkiisa inaan jaamacadda u geeyo waxaan u ballan qaadayaa baarlamaanka nabadgelyo dhab ah
saddex boqol iyo soddon qof oo aad keentaan oo aynu isku hubno baynu waxaynu u dirsanaynaa tababar hadda ah saddex boqol iyo soddon amnigiina way ka badan yihiin oo loo qalabeeyey waxaa kale insha allah oon u ballan qaadayaa baarlamaanka laba arrin oo aad u waaweyn laakiin arrinkaasi waa arrin nabadgelyada laga yaabaa inuu waxyaabaha qaarkood laakiin la maqli maayo baarlamaankii baa suuqa lagu haystaayo jiifkiisii buu iska bixin waayey iyo hoteelkiisii abadan idinkaa ugu cisliin waa in laydin ciseeyaa sharaf baad mudan tihiin waxaa wejiyada horteeda ka muuqda ee dhalaalaya iyo baarlamaanka labada aqalba waxa aan ka rabaa insha allah inay codkooda igu caawiyaan oo ay igu caawiyaan soomaalinimo ninkii qabiil iga rabow qabiilkayga haddaad rabtaan waa labada guddoomiye iyo ku-xigeenadooda iyo guddoomiye bayle iyo idinka haddaad qabiilkayga rabtaan waa intaa soomaali baan ahay anugu waxaan idinka rabaa markaa hadduu ilaahay yidhaahdo inaad igu caawisaan codkiinna oo anigun iima gargaaraysaane aad dalka u gargaartaan waxa kaloon intaa idiin raacinaya insha allah ma aha aniga waxa igu 4 sano dad baa waxay ku meeraystaan 4 sano i doorta buug baan qoray waxaan ugu talagalay 250 Soomaali siday u kaanaysaa 250 imise milyan bay Soomaali noqonaysaa 50 milyan baa aniga ii qoran biidnillah inaynu noqono dawladda afaraad ama saddexaad ee Afrika ugu qanisan inaynu noqono laakiin fikirkeedii baa laydinka rabaa dee haddaad ka fikiraysaan qabiil iyo waxaad ka sharaf badan tihiin oo maxay tahay waa lacag maxaa la yidhahdaa masquushan baa lala galaa marka dambana intaa ma ku dhamaataa ama dhar baa lagu gataa soo wax intaasu maaha wax ka sharaf badan baad wadataan kitaabkaana waad ku dhaarateen guddoomiyaha baarlamaankana hadda waad maqlayseen meel ay ka soo gasho waxyaabaha qaarkood ma jiro shuruucdeena iyo kitaabkaad ku dhaarateen ma kitaabku yuusan idin qabanin waxaan leeyahay on mar labaad ku celinayaa oo aan ka codsanayaa baarlamaanka inay codkooda isiyaan ra'iisul wasaarahayguna waa diyaar biidnillah ahay qorsheysa waxa kamida saacadu way ugu yartahay gabdhaha Soomaaliyeed inay noqdaan kafiil sida khaliijka oo ay iyagu dadka ajnabiga iyagu kafiil ka noqdaan sida hadda lagu oranayo kafiil keenso lagu oranayo iyo wiilasha Soomaaliyeedba waxaan ugu talagalay wadankan inaynu insha Allah